Markay timaado barashada luqadda Ingiriiska, weli ma isweydiisay su'aalaha ah why aan u baranayaa luqadda Ingiriiska? Maxay tahay sababta aan wax u baranayaa? Horta mar walba oo uu jiro gap ama ay dhib jirto ama wax la xalinayaa ama baahi jirto, waa inay jiraan su'aalo meesha yaallo la isweydiinayo. Maxaan sabab u sameynayaa? Haddii aan waxaan sameeyo, maxaan ka faa'iido wax noocaas? Su'aalaha noocaas la isweydiiyaa. Markaad baranayso luqadda Ingiriiska, ma isweydiisay why aan u baranayaa luqadda Ingiriiska? Maxay tahay faa'iidada ku jirta inaad barato luqadda Ingiriiska? Iyo su'aalihii wixii kale la xiriira. Marka maanta halkan waxaan kula wadaagi doonaa 4 siyaabood oo ay tahay inaad barato luqadda Ingiriiska ay qasab tahay, ama 4 reasons why you are learning the English. 4 sababood oo keenaya ama kugu riixaya inaad barato luqadda Ingiriiska. Midda koowaad waxa weeye isgaarsiinta caalamiga ah ama global communication. Af Ingiriisigu waxaa loo adeegsadaa sida luqad caadi ah oo dadka ka kala yimaada meelo kala duwan iyo dhaqamo kala duwan iyo luqado kala duwan ay ku wada sheekaystaan, taasoo sahlaysa dadka ka soo jeeda dalal iyo dhaqamo kala duwan inay si fudud iskugu xidhmaan. Haddii aad ku jirto kulan ganacsiya ama shir caalamiya, ama keliya aad la kulmayso qof markaad waddankaa ka soo jeeda ama waddan kale ka soo jeeda, Ingiriisigu waa buundada ku oggolaanaysa isgaarsiinta oo aad ku wada sheekaysan kartaan qofkii. Ingiriisigu waa luqadda ugu badan ee loo isticmaalo xagga siyaasadda, ururada caalamiga iyo weliba dalxiiska. Waxaanay barashadeedu luqadda Ingiriiska ku fududeynaysaa inaad ka gudubto caqabadihii aad kala kulmi jirtay markaad baranayso luqadda Ingiriiska, ama qofka aad la hadlayso aydan aad raadin jirtay qof kuu translate karaya ama kuu turjuma. Marka waxay kuu sameynaysaa xidhiidho iyo weliba fikrado aad la wadaagi karto dadka adduunka jooga oo dhan. Sidoo kale waxay kuu fududeynaysaa isgaarsiinta madalaha internetka ama baraha bulshada ha noqdaan ama meelo kale ha noqdaan, iyo weliba wada shaqayn caalami ah. Marka global communication waxa weeye dadka dunida ku nool oo dhan inaad luqaddaasi ay kuu furfurto oo sidii qof dad meel ku wada nool oo kale fahansan oo wada sheekaysataan. Midda labaadna waxa weeye fursadaha shaqo. Suuqa shaqada ee maanta ee caalamiga ah, aqoonta luqadda Ingiriiska ayaa noqotay midda ugu muhiimsan ee xoojinaysa horumarka shaqo. Shirkado badan oo caalami ah waxay u baahan yihiin shaqaale ku hadla Ingiriisiga si ay ula xiriiraan macaamiisha, daneeyayaasha iyo shaqaalaha kala duwan ee caalamka. Ingiriisigu waa luqadda ugu badan ee loo isticmaalo ganacsiga caalamiga, waxaana lagu isticmaalaa warshado badan sida tiknoolajiyadda, maaliyadda, daryeelka caafimaadka iyo weliba suuqgeynta. Marka barashada Ingiriisigu waxay kuu furi kartaa fursado shaqo oo wanaagsan, mushahar sare iyo fursado kordhin oo shaqo ah. Aqoonta Ingiriisigu waxa ay kaa dhisaysaa inaad noqoto qof aad loogu baahan yahay oo la hadli kara macaamiil caalami ah. Kiina saddexaadna waxa weeye helitaanka aqoon iyo weliba macluumaad. Maanta dunidaynu joogno waa dunid information ah, waa time of information baan joognaa. Aqoon fiican oo wanaagsan oo waxtar leh inaad heshaa iyo weliba macluumaad inaad heshaa waxay ku xidhan tahay inaad horta taqaano luqadda Ingiriisiga, aad taqaano qaabka wax loo baaro ama loo sameeyo cilmi baarista loo sameeyo. Qayb weyn ayay oo aad iyo aad u muhiim ayay ka ciyaartaa luqadda Ingiriisigu inaad barato. Maadaama markaas barashadeeda markaad barato ay kuu samaxaysa inaad taqaano meelaha khayraadka waxbarashada iyo cilmi baarista ay ku jiraan. Hay'adaha iyo weliba jaamacadaha caalamiga ee adduunka ugu horumarsan maanta waxyaabaha ay bixiyaan ama researchada ay bixiyaan ama koorsooyinka ay bixiyaan iyo weliba wax walba oo ay bixinayaan inta badan waxay ku qoran tahay luqadda Ingiriiska. Marka waxaan odhan karnaa nimcada aqoonta, cilmiga iyo macluumaadka dunida maanta wuxuu ku qoran yahay luqadda Ingiriiska. Qofka hadduu yaqaano luqadda Ingiriisiga oo uu ku hadlo oo qori karo oo reading samayn karo oo akhris samayn karo, qofkaasi waa qof cilmi wanaagsan oo bulshada kula xiriiri karo ama bulshada ku dhex geli kara yaqaana. Marka waxay kuu siinaysaa barashada luqadda Ingiriisigu inaad hesho aqoon iyo weliba macluumaad waxtar leh oo tayo leh oo weliba nooc u dambeeyay.
qodobkiina afraadna waxa weeye dalxiiska iyo weliba sahaminta. Marka aad ku safrayso ama aad tagto waddan aan wadamadaada ahayn ama waddankaaga ahayn ama hore aanad u tegin, waddankan luqad kale oo gaara laga hadlaa ama local language wax la yiraahdo baa lagaga hadlaa. dadka bulshadaasi meesha ku nooli waxa qasaba inay yaqaanaan luqadda Ingiriisiga. Marka haddaad u baahato yacni meel in lagu tilmaamo, meel aad u socoto, halka aad doonayso, meelaha ugu wanaagsan dalka aad booqanayso, waxaas oo dhan ayaa ku siin kara dadka localka ee deegaankaas ahba ayaa ku siin kara. Si dadka u weydiiso waana taqaan luqadda Ingiriisiga. Waxaana la hubaa xilligan la joogo dunida maanta shantii qof ee meel marayaba ugu yaraan hal qof inuu luqadda Ingiriisiga ku hadlayo oo uu yaqaano ama the basic uu yaqaano oo uu ku tilmaami karo, wax ku sheegi karo, oo ku hagi karo. Marka doonayso dalxiis iyo meelo inaad tagto ama wax sahamiso aad doonayso, barashada luqadda Ingiriiska waa muhiim. Qofku inuu yaqaan luqadda Ingiriiska oo dee dunida uu ku safrayo uu kula hadlo. Waana luqad international language ah oo dunida oo dhan ay ku wada hadlaan, dadka oo dhan ay bartaan. Waa luqadda loogu barashada badan yahay. Waana waxa la most common second language baa loo yaqaanaa. Waa luqadda labaad ee loogu hadalka badan. Maxaan ku wadaa luqadda labaad? Waxa weeye dadka luqadooda kooda markay bartaan luqadda labaad waxay ka dhigtaan Ingiriisi bay ka dhigtaan. Taasoo waa most second language baa laga wadaa macnaha. Hadda inagu markaynu af Soomaali ka nimaadno luqadda koowaad labaad ee ugu ballaaran dadkan ku hadlaan waxaan aaminsanahay inay tahay luqadda Ingiriiska.